وعن داوديال halkani waa Banaadir TV waxana ay Saara Axmed Makaayil ku soo dhawaada barnaamijka xogta wararka oo maalinimo walba hadaya oo kale aad uga barateen TV-gana Banaadir TV qodobada aan idinku hayno waxa ay kala yihiin diyaarada ay leeyihiin ciidamada Kenya ayaa ku burburtay deegaanka Dobley askar Sacuudiyaan ayaa lagu laayay xuduudda Yemen Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya ayaa meesha ka saaray arrin laga cabsi qabay qodobadan iyo kuwa kale ku soo dhawaada halkani waa Banaadir TV isku soo noqod wacan daawadayaal haatan ku soo dhawaada barnaamijkeeni oo faahfaahsan diyaarada ay leeyihiin ciidamada Kenya ayaa ku burburtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Dobley wararka laga helay gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya diyaarada nooca militariga ay leeyihiin ciidamada Kenya ee qaybta ka howlgalka AMISOM ee ka socda Soomaaliya ayaa ku burburtay garoonka diyaaradaha ee degmada Dobley ee gobolka Jubbada Hoose ugu yaraan hal qof ayaa ku dhuntay iyadoona ay ku dhaawacmeen ilaa 3 kale oo dhammaan howlwadeenadii la socday diyaaradda burburtay isla wararka diyaaradaha Kenya ayaan ku jirnaa diyaarad sidee qaadka mirooga una sidee ganacsato reer Puntland oo waday 12 tan ayaa laga celiyay hawada Soomaaliya kadib markii lagu eedeeyay inay jabiyeen xeerka COVID-19 maadaama ayna fasaxin dawladdu diyaaradaha qaadka sida Xasan Sheekh Maxamuud oo meesha ka saaray arrin dad badan ay ka cabsi qabeen madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad ka jeediyay shirkii Beelweynta Mudulood ee ka furmay Mawlaca Macalin Nuur ee magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay arrimo dhowra Xasan Sheekh ayaa shirkaasi ka sheegay in sida dad badan ay ka cabsi qabaan aysan beesha Mudulood marnaba ka suuroobin inay dumiyaan dawladnimada ay waqtiga badan soo galiyeen oo ay lugooyaan maadaama uu dhiig badan u soo daatay waa sida uu hadalka u dhigay waxaana uu si cad u sheegay inay jirin cid xilligan ka hor iman karta doorasho qof iyo cod ama sadhihi karta ma rabno iyada oo la fahamsan yahay in fiila Soomaaliya ay rabto inay farmaajo ugu samayso muddo kororsi taasi oo si weyn looga digay Xasan ayaa sidoo kale qaba in doorashada qof iyo cod ay tahay mid sax ah balse aan si dhab ah looga shaqeyn xilligii ugu haboonayd kadib markii ay ansixiyeen baarlamaanka Soomaaliya agaag daawadayaal haatan war waxaanu idinka hayno dalka dibadiisa askar Sacuudiyaan ayaa lagu laayay xuduudda Yemen askar ka tirsan ciidanka Sacuudiga ayaa waxyeello soo gaartay xilli ay isku dhacyo ka socdeen koonfur galbeed ee dalka Sacuudiga sida lagu sheegay war ay baahisay warbaahin xiriir la leh Xuutiyiinta ka dagaalanta dalka Yemen isku dhacyada ayaa ka dhex qarxay xooga Xuutiyiinta iyo ciidanka Sacuudiga sida uu baahiyay website-ka Ansarullah ma jiro wax war ah oo ka soo baxay mas'uuliyiinta Sacuudiga agaag daawadayaal haatan ku soo dhawaada xubinteeni saadaasha hawada oo gabagabo waa barnaamijkeena xogta wararka subaxnimadii saaka qoraxda magaalada Muqdisho waxa ay soo baxday 12:05 daqiiqo waxa la filayaa inay dhacdo 12:04 daqiiqo heerkulka magaalada Muqdisho waa 26 digrii magaalada Kismaayo saaka qoraxdu waxa ay soo baxday 12:04 daqiiqo waxa la filayaa inay dhacdo 12:03 daqiiqo heerkulka magaalada Kismaayo waa 27 digrii magaalada Hargeysa subaxnimadii saaka qoraxdu waxa ay soo baxday 12:03 daqiiqo waxa la filayaa inay dhacdo 12:02 daqiiqo heerkulka magaalada Hargeysa waa 28 digrii guud ahaanba barnaamijkeeni xogta wararka maanta waa naga inta tan iyo intaynu maalinimada bari isugu iman doono nabadgelyo